hadduaan yidhaahdo dalabweyne haddaad ka hadlo ama gobolka hiiraan dad qiimo lahaa ka soo baxeen madaxweynihii ugu horeeyay soomaaliya oo si lagu soo doortay dimuqraati ah oo uga tegay si dimuqraati ah aadan cabdulle cismaan allaa u naxariistee waxaan ka soo jeedo sheekh xasan barsame waxaan ka soo jeedo awoogay sheekh cali jimcaale waxaan ka soo jeedo cabdulaahi ciise oo calanka geeyey marka waxaa foolxumo ah maanta anagu joogno taariikhda 2029 inay qabiyadeena ay kala dilan yihiin qof walbo aa aragtaan inuu wata dana gaar ah ilaahay ka cabsada qofkaas iska fogeeya qof walbo oo aragtaan inuu danta shacabka ka shaqaynayana inaad soo dhaweysaan aniga maanta haddaa ii aragtaan qof oo dana gaara wato inaad banaanka geysaan aadaalaan cura u tihiin dadkaa u shaqaynaya idinka waay dadkaa cashuurta ka qaaday waa idinkan xuquuqaan iigu leeyahay idinkan xaquuqa igu leedihiin xuquuqaan iigu leeyahay waa maxay waa inaad cashuur dhiibtaan waa ka faa'iidaysana saacadamasiir iga raali noqdo 1 Agoosto hadduu aan yidhaahdo waxaan bilaabi doonaa howlihii dowladda hoose loogu talagalay cashuur hadday noqoto wax walba hadduu aan yidhaahdo idinkana waxaan rabnaa hadduu aan yidhaahdo inaa igula xisaabtantaan cashuurtu waa laga qaadaye magaalo maxaa noo qabatay ma wadaa noo dhistay ma waxbarashaa noo samaysay ma caafimaadka wax ka qabatay wallaahi oo bilaah oo talaa isinka ilaah wax ka weyn mala hooyooyinka masaakiinta ah aan jidka la xaaqaayay $1 ma aan siinin maxaa keenay waxaa u sheegay wadadan inay iiga leeyihiin gurigaaga hortiisa haddaadan nadiifin xagee nadiifine marka dhalinyaro waxaan dhihi lahay wadanka idinkaas kale odayaasha waxawaa waqtigooda waa soo qaateen in aa wadankiina u istaagtaan SYL ilaa xeer xasbiyo ma aysan haysanin maanta waxaa laga yaabaa in ingiriiska laiga daawanayo in america laiga daawanayo technologyga maanta jiro ma uusan jirin aqoonta jirto ma aysan jirin haddana horumare waxay ku gaareen inay gumeysiga laga saaraan gumeysiga qabiilka ilaahay la tacaarufku laa laakiin qabyaalada xun in aan iska saarno oo gacmaha aan isqabsano hadduu aan yidhaahdo taasaa horumar iyo guul lagu gaara insha allah wabilaahi tawfiiq haddana waxaan kusoo dhaweynayaa gudoomiyaha axmed baar kusoo dhawaa gudoomiye